Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee Xamar waxa uu kulan kula qaatay guddiga midowga dalada waxbarashada ee gobolka Banaadir. Kulanka oo ay kasoo qayb galeen saraakiisha waxbarashada ee gobolka Banaadir iyo dhammaan xubnaha guddiga midowga waxbarashada ee daladaha ee gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlay arrimo la xiriira waxbarashada iyo tayeynta guud ee waxbarashada ee gobolka Banaadir. Kulankan oo saacado badan qaatay kadib markii uu soo dhamaaday waxaa warfidiyeenada aqalka hoose ee Xamar kula hadlay agaasimaha guud ee waxbarashada ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Sheekh Nuur isagoona faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan iyo waxyaabihii ay maamulka diiradda ku saareen. dhammaan ummadda Soomaaliyeed Ramadaan Kariim gaar ahaan ummadda ku nool gobolka Banaadir maantay waxaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo la kulmay midowga daladaha Soomaaliyeed guddiga midowga daladaha Soomaaliyeed ayuu la kulmay waxayna ka mid ahayd kulamadii bahda waxbarashada la yeelanay gudoomiyaha maalmihii la soo dhaafay taas oo ujeedkoodu yahay in la iska warqabo in waxbarashada la tayeeyo in hawlaha waxbarashada ee gobolka Banaadir meeshii marayaan uu gudoomiyuhu ka warqabo dadka uu wareysto dhageysto talooyinkooda wax ku daro talooyinkiisa iyo hamiga iyo ujeedka uu ka leeyahay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Banaadirna uu u sheego iyo hawsha agaasimka meeshii marayso sidaas ayaa kulamadan ay u socdeen maanta waxaan ula kulmay midowga guddiga midowga daladaha Soomaaliyeed wuxuuna kala hadlay sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa sidii imtixaanaadka loo qaadi lahaa sidii ardada ku nool gobolka Banaadir sanadkii hore arday badan imtixaan ka dhacday aysan sanadkaana ay arrintii oo kale u soo laaban arrimahaas ugu waaweyn ayuu gudoomiyuhu la yeeshay midowga guddiga midowga daladaha Soomaaliyeed oo la yeeshay waxaana runtii la isla qaatay la isdhaafsaday arrimo muhiim ah oo badan oo dhammaantood u khidmeynaysay sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa marka dhammaanteen waxaan ka hadlaynay waxay kusoo biyashubanaysay si waxbarashada loo tayeeyaa maadaama la gaaray xilligii imtixaanaadka la gaaray agaasinkuna uu sanadkan oo dhan ka shaqaynayay sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa sidii qorshaha waxbarashadii uu agaasinku ka shaqeeyay loo horumarin lahaa loona socodsiin lahaa arrimahaas ayaa la soo qaatay waxaa soo dhaweeyeen midowga daladaha Soomaaliyeed gobolka Banaadir ka shaqeeya qodobadii gudoomiyuhu uu kala hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isla qaatay waxaa ka mid ah ardada in loo sameeyo in manhajka loo dhammaystiro iskuulaadka iyo maamulayaasha dugsiyada la baraarujiyo waalidka Soomaaliyeed in la baraarujiyo oo ardayga ay ka warqabaan wax akhrintiisa iyo dadaalkiisa ay ka warqabaan maamulayaasha dugsiyada ardada u dhameeyaan manhajka macallimiinta ay ka warqabaan macallimiinta sidoo kale doorkooda ay qaataan ardada laftigooda in la baraarujiyo la wacyigeliyo oo qorshaha agaasimka u sameeyay wacyigelinta ardada in laga wada qayb qaato la garab siiyo sidaa daraaddeed marka haddii manhajka ardada loo dhammaystiro muraajaco fiicana la siiyo waalidkii uu dadaalo dhinaciisa ka dadaalo ardayga uu dadaalo iskuulkii uu dadaalo bahdii waxbarashada daladihii iyo bahdii kale waxbarashada ay dadaalaan agaasimka waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bahdii waxbarashadana isla dadaasho meesha waxaa kasoo baxaya arday fiicana kasoo bixi doona waxaa dhici doonta in ay yaraato nambarka ardada oo dhacaysana ay yaraan doonto hadduu aleedmo waxyaabaha gudoomiyuhu uu kala hadlay midowga daladaha Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa in laga fogaado lana joojiyo imtixaanaadka tirada badan ee la qaadayo shahaadiga ah daladu waxay qaadaan imtixaan qaadi jireen 8aad oo shahaadi ah iyo imtixaan form 4 oo shahaadi ah waxaa yimid wasaaradda markay timid imtixaankii form 4 ka ahaa sanadkii 7aad la qaadaya agaasimka waxbarashada gobolka Banaadir wuxuu geystay sanadkii 2aad ee imtixaankii shahaadiga ee 8 qaadaya marka si ardadii ay isu wareerin dugsiyadii isu wareerin waxyaabaha la isla gartay oo la isla qaatay gudoomiyuhuna aad u adkeeyay ayaguna ay nala fahmeen isla qaadan waxa ka mid ahaa oo muhiimsan waxa ka mid ahaa in imtixaanka shahaadiga ah ee 8aadka uu noqdo kan kaliya oo gobolka qaadayo imtixaanka form 4 ka ah
la qaadayo uu noqdo kan kaliya ay wasaaradda waxbarashada ay qaadayso oo gobolku gacanta ka siinayo dowlad goboleedna ay gacanta ka siinayaan wasaaradda waxbarashada sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa dhammaan dugsiyada gobolka banaadir ku yaala iyo bahda waxbarashada gobolka banaadir ka shaqeysa waxa ardayga Soomaaliyeed inaan isa wareerin aan la wareerin oo maanta meeshan aan isla qaadanay daladaha iyo gobolka oo gudoomiyuhu uu shirka hogaaminayay in ardayda sideedkan ay galahayaan imtixaanka fasalka sideedaad kaliya oo ah ka dawladda oo qaadayo gobolka banaadir gaar ahaan agaasiga waxbarashada kan form 4 kana uu yahay imtixaanka form 4 ee wasaaradda waxbarashada qaadayso kaliya inay wasaaradda imtixaankaas ardaydu galayaan oo ardaydu u diyaar garoobaan labadaas imtixaan shahaadi ah laakiin imtixaan kale oo shahaadi ah oo aan aysan la qaadin shahaado kale oo aan ahayn kan agaasiga bixinaya iyo kan dawladdu bixinaysa gobol banaadir laga qaban ayaan isla qaadanay lagana qaadan arrimahaas ma isla fahmnay daladahana way soo dhaweeyeen waxaan rajaynaynaa marka arrimahaas aan ka wada shaqeyno ardada iyo imtixaankooda si fiican uga shaqeyno dhammaan waxbarashada tayada si fiican uga shaqeyno insha Allah aad u mahadsantihiin dhammaantiin Ramadaan Kariim gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa bilooyinkii dambe waday dadaalo lagu dardargelinayo mideynta iyo adkeynta guud ee waxbarashada dalka gaar ahaan kuwa gobolka banaadir Cabdijaliil Cusmaan Samo warbaahinta SOM TR TV Ankara